bismillaahi araxmaani iraxiim. kusoo dhawaada janalka maalmaha. waxaan idiin soo gudbinaynaa qiso aad u xiiso badan. qisadan ayaa waxay dhex martay nin faqiir ah iyo nin taajir ah. ninkani faqiirka ah ayaa wuxuu gabar ka doontay ninkan taajirka ah. ninkani markii uu u tegay ayuu wuxuu ku yidhi, waxaan kaa doonaya inaad gabadhaada isiiso, wax hanti ahna ma haysto. ninkii ayaa ku yidhi, gabadheeda waan ku siinayaa, balse waxaan kaa rabaa inaad meherkeeda isiiso, hal dambiil oo basal ah. ninkii waa uu ku waafaqay, wuxuuna keenay dambiishii basasha ahayd. sida ayuuna gabadhii ku guursaday. muddo kadib gabadhii waxay u dhashay wiil. maalin maalmaha ka mid a ayaa waxay u xistay gabadhii inay soo boqoto reerkeeda. waxay ku tiri ninkeeda, waxaan rabaa inaan reerkayga soo booqdo, isla markaana aan ugu bishaareeyo wiilkani uu Allah subxaana wa tacaala ina siiyey, waxaana kaa doonaya inaad reerkayga ii raacdo. ninkii waa uu ka aqbalay. kadib waa ay soo wada baxeen, balse waddada loo aado gabadha reerkeeda ayaa waxaa ku yaal webi. markii webigii ay tageen ayaa ninkii wuxuu xambaaray wiilkii yaraa. gabadhiina waa uu ka tegay. gabadhii ayadoo isku dayaysay inay webiga gudubto ayay koftay, biyihii ayayna ku dhacday. markaasay ninkeeda waxay ku tiri, badbaadi. wuxuu ku yidhi, naftaada badbaadso, maxaa yeele wax qiimaha ma lihid, waxaan kuu guursay dambiil basal ah. gabadhii muddo kadib alla ayaa kasoo badbaadiyey webigii. markii ay u tagtay reerkeeda ayaa waxay u sheegtay aabaheed wixii dhex maray iyada iyo ninkeeda. aabihii aad ayuu carooday, wuxuuna ninkii ku yidhi, cunugaaga qaado, hana ii soo noqonin adigoo aan ii wadin dambiil dahab ah. ninkii waa iska soo tegay, wuxuuna soo kaxaystay wiilkii yaraa. aad ayuu ugu dhibaatooday haynta cunugan, waxayna danta ku qasabtay inuu raadiyo dahabkii laga dalbaday. dhowr sano kadib ayuu soo helay, wuxuuna ku soo laabtay aabihii, wuxuuna u geeyey dahabkii. gabadhii ayaa la soo siiyey. markii ay soo noqdeen ayay waxay soo mareen webigii. gabadhii markii ay webiga lugta gelisay ayuu ninkii ku soo cararay, wuxuuna ku yidhi, waxaad igu tahay qaali, maxaa yeele waxaan kaa bixiyey dambiil dahaba, sidaa darteed ma doonayo inaad iga dhimato. sidaa ayay biyihii kusoo gudbeen. muddo kadib aabihii ayay u laabatay gabadhii, waxayna u sheegtay wixii dhex maray. markaasuu aabihii qoslay, wuxuuna yidhi, markii aan dabeecaddan kula dhaqannay si xun ayuu nagu sameeyey, balse markii aan dabeicaddiisa kula dhaqannay si wanaagsan ayuu noola dhaqmay. qisadan ayaa waxayna tusinaysaa qofka wanaagsan haddii wanaag loola dhaqmo wuxuu ku bedelaa wanaag, balse qofka xun haddii wanaag loo sameeyo wuxuu ku abaalgudaa xumaan. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ka cusub tahay janalka maalmaha, fadlan sabskaraab dheh gamareerkana riix si ay kuu soo gaaraan waxyaabaha cusub aan soo dhigi doono. mahadsanid.